Dhakhaatiir iyo arday ka socday jaamacadda iyo dhakhtarka Adna Aadan ayaa howlgalo caafimaad maanta ka sameeyay iskuulka Cumar Dinaari ee ku yaala xaafadda Digaale ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada caafimaad ee laga fuliyay iskuulkan maamulaha iskuulka, dhakhaatiirta iyo ardayda fulinaya howlgallada caafimaad. Qaar ka mid ah waalidiinta ardayda iskuulka waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Waxaa hawl caafimaad ka socda dugsiga hoose dhexe Cumar Dinaari ku yaala xaafadda Xaaji Cumar Digaale. barnaamijka caafimaad ee ka socda xaafadda oo ah in lagu sameeyo in la check gareeyo xagga caafimaadka carruurta runtiina ahaa barnaamij ardaydu ay aad iyo aad ugu baahnayd maadaama caafimaadku yahay mudnaanta koobaad ee nolosha. waxaa hawsha markaa iska kaashaday ardayda jaamacadda Adna iyo sidoo kale isla isbitaalka Adna. waan soo dhaweynaynaa runtii waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa inuu ajar iyo xasanaadba ka siiyo anana noqono kuwii ka faa'iista. magacay waxa weeye Cumar Jaamac Cabdullaahi waxaan ahay dhakhaatiirta Adna Aadan joogta. hadda waxaan joognaa iskuulka Cumar Dinaari oo ku yaala xaafadda Digaale. halkan waxaan nimid inaan ka fulino barnaamijka la yiraahdo School Health Program. barnaamijkaas oo ah in caafimaadka guud si guud ardayda caafimaadkooda loo eego khaasatan maadaama waqtigan la joogana uu kooban yahay. waxyaalahan ka eegayna waxa kamid ah ilmaha xanuunada infectionka, kuwa maqaarka, kuwa dhagaha, kuwa sanka iyo kuwa cunaha iyo si guud wixii jirka ka muuqda. sidoo kale waxaan eegaynaa ilmaha nafaqadiisa, haddii ilmaha nafaqa darro jirto ama ha noqoto ta'aadka u daran ama ha noqoto ta dhexe ama ta'aadka u hooseysa ha noqoto inta waan eegaynaa. sidoo kale waxaan ka eegaynaa xanuunadan inta badan ciyaalka intooda badan ku dhaca u badan hidaha ama xanuunadan waalidka laga dhaxlo sida macaanka oo kale ayaan ka eegaynaa. waxa sidoo kale aan sameeynaa inaan carruurta fahansiino oo waxaan uga gaarsiin karana fahansiino sidaalaha haddii qof kalaaska la fadhiya uu arko xanuun ama xanuun la kala qaadi karayo waxyaalaha ay sameyn karayaan. si guud intaasaan sameynana. halkan horta waxaa ka hadlaysa dhakhtar Faadumo Cabdi Cabdilaahi oo ka socota dhakhtarka Adna Aadan Adna Aadan University inteena wayna ka soconnaa. marka maanta waxaynu nimi iskuulkan Cumar Dinaari iskuul ku yaala Digaale oo waxaynu u nimi caafimaadka carruurta. waa program ballaaran, waa program in dhowr iskuul imaka aynu isku soo marayno bishan insha Allah hadduu Ilaahay noo qoro. oo program aynu doonayno in runtii magaalada Hargeysa oo dhan iyo Soomaaliland badda in lagu ballaariyo programkan insha Allah. carruurta waxaynu ka eegaa xanuunada uu dhakhtarka imika inoo sheegayay. xanuun walba laga helona dawadiisa anaga qabna. programkan waxa qarashkaas ka qaba Adna Aadan University iyo Adna Aadan Hospital insha Allah. magacaygu waa Ridwaan Maxamed Axmed waxaan ahay shaqaale ka tirsan jaamacadda iyo dhakhtarka Adna Aadan. sidii tiimkaygu ay sheegeen maanta waxaan joognaa iskuulka la yiraahdo Cumar Dinaari. waxaan u fidin doonaa ardayda adeegyo caafimaad oo u baahnaayeen runtii. carruurta waxaan ka eegi doonaa indhahoodan eegi doonaa, dhagahooda, cunahooda, caafimaadkooda guud, nafaqadoodan eegi doonaa. sidoo kale carruurta waxaan siin doonaa kiniinka loo yaqaano albendazole ama kiniinka gooryaanka. sidoo kale ilmaha marka caafimaadkiisa la eego haddii uu u baahdo dhakhtar dheeraada waxaan u geyn doonaa dhakhtarka Adna. wixii dhakhtarka Adna lagu xalin karo dhakhtarka Adna lagu xalinayaa. wixii kale ay u baahnaadaan dhakhtar kalena waanu geynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. wax lacag oo laga qaadayana ma jirto, waa bilaash. Ilaahay khayraad siiyo Adna Aadan ayaa arintaa ka faala qaaday. waxaan rajaynaynaa inuu programkan ka hirgalo wadankeena oo dhan, magaalo kasta, dugsi kasta inuu yeesho hal neeras ugu yaraan. alxamdulillah hadduu yeesho ilmi yaraa hore ayaa goob caafimaad loo geyn karaya. macallimiintana waanu train garaynaa, waxaanu barnaa sida ilmo yar uu la tacaali lahaayeen, ay hore dhakhtar u geyn lahaayeen. haddii intay waalidka ugala hadlayaan waqti bay gaadhaysaa, waqti bay qaadataa badanka. marka alxamdulillah ilaahay iidankii hadduu programkaasi inoo hirgalo carruur badan oo caafimaad badan inay wax inoo bartaan baynu jeclaan lahayn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan soo booqday qolo ka socota dhakhaatiirta Adna Aadan. maasha Allah carruurteeda caafimaadkooda la baaraya. alxamdulillah rabbil caalamiin hadnaq baan ugu haynaa. waan u baahanay caafimaadkeena loo eego oo loo baaro carruurta. maasha Allah maanta alxamdulillah rabbil caalamiin hadnaq badan baan u haynaa.